assalaamu calaykum asxaabta waa ayaama ka bacdi iyo kanaalkeenii nolol wanaag iyo muuqaal cusub haddaba asxaabta haddaad nagu cusub tihiin fadlan sabskraibta saar haka ilaawi inaad sabskraib garayso waxaan maanta jeclaystay inaan la wadaago mawduucaynu hore uga soo sabaynay hordhac oo ahaa waa maxay dhibaatada baraha bulshadu oo ku haya caalamka maanta. Soo dhowaada. arrimaha bulshada ama loo yaqaano social media waa warbaahinta guud ee loogu talagalay isgaarsiinta bulshada, isdhexgalka, wadaagidda xogaha iyo iskaashiga bulshada. waxaa markii hore loo soo saaray inay ku wada xiriiraan ehelka iyo asxaabta si looga soo gudbo isgaarsiintii hore ee aan horumarsanayn. hase ahaatee hadda waxay noqdeen waxyaabaha ugu badan ee waqtiga lagu lumiyo, waxaanay si joogtaa uga mid noqdeen waxyaabaha nolosheenna si joogtaa ula falgala. waqtigan isticmaalka baraha bulshadu wuxuu noqday lambar 1 waxa ugu badan ee ay dadku waqtigooda ku bixiyaan. way yar tahay inta waqti kooban isticmaasha marka laga yimaado dadka waaweyn oo u qaybsama 2 qaybood, qaar aan isticmaalin iyagu iyo kuwa isticmaala see waqti kooban isticmaala, sababtoo ah iyagu maba haleelaan oo qofka weyn wuxuu raadiyaa biilka iyo nolol maalmeedka ilmihiisa. see dadka waqtiga ugu badan ku bixiyaa waa dhalinyarada. dadka internetka adeegsada haatan waxay ku lumiyaan maalintii ugu yaraan 6 saacadood iyo dheeraad. waxaa sidoo kale jira dhalinyaro xitaa habeenkii ku dhafra oo aan saxan ilaa ay isticmaalaan. maxay tahay faa'iidada baraha bulshadu? faa'iidadu waxay faa'iido noqotaa sidoo kale midho yeelataa markay siday tahay looga faa'iidaysto waxaad doonaysid inaad ka faa'iidaysatid. waxaa haatan suurtagal ah in meel walba iyo mar walba aad si joogta uga faa'iidaysan karto xagga aqoonta iyo iskiliska faraha badan oo aad ka heli kartid. 30 daqiiqo oo aad ku bixiso Facebook waxaa kaaga faa'iido badan 30 daqiiqo oo aad ku barato xirfad cusub ama aad kaga faa'iidaysato aqoonta dhex taal website-yada iyo YouTube-ka.